Indians and other groups. sidee ay jasiiradda kaneecada badan ee Maleeshiya cayrisay ay ku noqotay dal ka mida dalalka dunida koobaad. Singapore waa dal yar oo hal magaalo ama city state ah kaas oo ah jasiirad yar oo dhacdo koonfur bari qaaradda Asia. waa dal baaxad ahaan aad u yar oo ku fadhiya badan 722 kiilomitir wareega. magaalada Dar es Salaam ee Tanzania ayaana baaxad ahaan ka weyn Singapore. Singapore waa jasiirad kaabiga ku haysa Malaysia. dadka wadanka dega waa China, Malaysia iyo Hindi. markay Britain ka xoobeen ayay go'aansadeen inay la midoobaan Malaysia oo ay u arkayeen dal ay isku dad yihiin. sanadkii 1963 ayay la midoobeen Malaysia iyagoo oo noqday dal qura. balse nasiib darro 2 sano kadib Malaysia baarlamaankeeda ayay u codeeyay in Singapore ay ka go'do Malaysia ayna ka baxdo iyagoo sheegay inay tahay jasiirad yar oo kaneeca badan dad sabool ah ay ku nool yihiin taasina aanay faa'iido ugu jirin dalka Malaysia. xilligaas Singapore waxay ahayd waqtigii ugu xumaa. waxa cayriyay dadkii kuwii ugu dhawaa. Lee Kuan Yew oo ah ra'iisul wasaaraha dalka wuxuuna u tafaxaytay sidii uu Singapore uga saari lahaa duruufta adag ugana mid dhigi lahaa wadamada ugu hodansan dunida. Lee muddo badan ayuu arrinkaasi ku mashquulsan dalkana kama uusan bixin. waxayna taariikhdu xustaa inuu socdaalkiisii ugu horreeyay oo dibadda sameeyay sanadkii 1973 8 sano ah kadib dalka kama bixin. Lee Kuan Yew sanadkii 1990 ayuu xilka ka degay oo loo aqoonsaday aabihii wadanka. waxaana sababay Singapore inay noqoto maanta xarun caalami oo hay u ah waxbarashada, madadaalada, dhaqaalaha, daryeelka caafimaadka, raasamaalka, hal abuurka, saadka wax soo saarka, tiknoolajiyada, dalxiiska, ganacsiga iyo gaadiidka. wadanku waxa ku jira heerka caalamiga waxaana loo aqoonsaday inay tahay Singapore dal haysta tiknoolajiyada ugu sareysa maanta taasoo mar walba diyaara. waa dal ay ku kulmaan hay'adaha iyo shirkadaha ugu waaweyn dunidu ayna ka dhacaan shirarka caalamiga. waa dal leh maalgelinta ugu wanaagsan dunida. Singapore waa dal aad u qurux badan sidoo kalena waa dalka ugu amnisan dunida. waa dal leh dhaqaalaha ugu furfuran caalamka. dal kaalinta saddexaad kaga jira wadamada ugu musuqmaasuqa yar caalamka. dal uu ku yaal suuqa sarifka ee saddexaad caalamka ugu weyn. dalku wax khayraad ah ma leh oo xataa ma laha dhul beereed ay wax ku beertaan. khudaarta laga isticmaalo oo idil waa mid dibadda kaga timaada. sidoo kale ciidda wax lagu dhisto xataa dibadda ayay ka keensadaan Singapore. sidaas ay tahay haddana waa dhul cagaaran ayna ku yaalaan daaraha ugu dhaadheer uguna qurxoon caalamka. sidoo kale waa xarunta saddexaad ee ganacsiga dunida. xarunta saddexaad ee dunida ee shidaalka lagu nadiifsho. dalka shanaad ee ugu hal abuurka sarreeya caalamka. sidoo kalena leh dekedaha labaad ee ugu mashquulka badan dunida. sidoo kale Singapore waa magaalada ugu nolosha qaalisan dunida taasoo muddo badan soo ahayd. dekeda Singapore waxa lagu tilmaamaa inay tahay hormuudka dekedaha caalamka. si la mid ah garoonka diyaaradaha ee Changi ee Singapore waa kan ugu wanaagsan caalamka. diyaaradaha Singapore Airlines waa diyaaradda ugu wanaagsan caalamka iyadoo sanadkii hore loo doortay inay tahay tan caalamka ugu wanaagsan. heerka horumarka aadanaha Singapore waa dalka 9aad caalamka ugu horeeya. wadanku waa dal ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka. dhaqaalaha dalku waxa uu kor u dhaafayaa 370 bilyan oo dollar kaasoo ka mid ah 30 dal ee ugu horeeya dunida. sidoo kale dalku waa kan saddexaad ee ugu hodansan dunida. dakhli sanadeedka soo gala dadka Singaporeega waa 98,000 oo dollar sanadkiiba. waa dal aad ugu horumaray hanaanka waxbarashada. jaamacadaha Singapore waa tan ugu wanaagsan guud ahaan Asia. sidoo kale daryeelka caafimaadka ayaa aad u wanaagsan. dadka reer Singapore waxa la tilmaamaa in cimrigoodu gaaro ilaa 80 sano celcelis ahaan. wadanka waxa ku nool 5.7 milyan oo qof. 39% dadkaasi waa ajaanib dalka degan oo ka shaqaysta 4 luuqadood oo rasmi ayaana laga hadlaa wadanka Singapore kuwaasoo kala luuqadda Ingiriiska, Malayga, Mandarinka iyo Tamilka luuqadda la yiraahdo. wadanka laga ceyriyay kaneecada iyo faqriga hoyga u ahaa maanta waa mid hormuud u ah dhaqaalaha, tiknoolajiyada, aqoonta iyo hal abuurka dunida. waxa heerkaas gaarsiiyay nin loo arko inuu ahaa hogaamiyihii ugu wanaagsanaa qarnigii 20aad waana Lee Kuan Yew. Singapore waa tusaalaha dalkaas oo xaaladiisu ka soo bilaabatay meel liidata. waa tusaale dunidu eegato